بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن ملك سو joogtaan ba hada wadayaal halkan waa wanaagna iskuna soo dhawaada barnaamijkeena arrimaha haweenka bas indhiinu hayaan toddobaadka waxa noogu martiya Khadra Xuseen Qaloon oo fadhida garabkayga iyo Nimco Cabdi Cismaan oo iyaduna sidoo kale fadhida garabkayga toddobaadkan hada wadayaal barnaamijkeenu wuxuu noqon doonaa barnaamij runtii xasaasiya kana duwan barnaamijyadii hore aad ku daawaneyseen muuqaalka talo mowduuca wada sugaysaan ee xiisaha leh muxuu noqon doonaa mowduucaas kulleeto waa qayb kamid ah nolosha bini'aadanka waxana weeyaan nin nooceeya ayaad dooni lahayd amba aad maxay ahayd jeclaan lahayd inuu nolol kula wadaago dabcan maadaama uu yihiin habluhu gabdho amba gabdho badan oo aan iyagu la guursan oo guur joogaya ayna daawanayaan ka faa'iideysi wanaagsan marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa Khadra Xuseen Qaloon iyo Nimco Cabdi Khadra soo dhawaashay bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawaayay walaalaha mahadsan tahay aad iyo aad bad mahadsan tahay sidoo kale Nimco soo dhawaadigana walaal waan dhawahay aad iyo aad bad mahadsan tahay aad bad mahadsantihiin dhamaantiin toddobaadka waxaan su'aashan ku weydiinay toddobaadkan ee barnaamijkeena waxa weeyaan nin neecoya ayaad nimco jeclaan lahayd amba sidee ah noloshayna la qaybsatid sax horta marka hore waxaan mahad celinayaa maxay ahaydey barnaamij TV-gan shabakada Har Wanaag News oo nagu soo marti qaaday aad iyo aad bad mahadsantihiin sidoo kale waxaan mahad celinayaa adiga iyo dhammaan shaqaalaha haddaan u yimaado su'aasha horta maxay ahaydey waxyaabo badan baan ku dooran lahaano ninka dooqay maxaa kamid ah waxa kamid ah horta marka hore qofka nolosha la wadaagaysa waa inuu diin lahaadaa wata koowaade talabaade waa inaad maxay ahaydey qofka doonaysa inaad nolosha la wadaagtaa oo noloshaada kafeyn karaa waxba xataa lacag badan amba maal badan yaan lahayn laakiin se just inuu noloshaada uu kafeyn karo oo maxay ahaydey sidii uu kafeyn karo yacni dee aad waxaad u baahan tahay dhaqaale ahaan kugu filnaan kara adiga oo shaqaysto nin ante aan yacni bilaa camal aan hayn oo shaqaysanayo xooggiisa ku shaqaysanaya wax kasta qabsan kara ninkaad jeclaan lahayd inaad nolosha la wadaagto nin sideeya ayuu ay in noqdo ayaad maxay ahayd rabtaa wallaahi way waxaan ku dooran lahaa haddii lagu yiraahdo Khadra ninka dooranaysid ama aan uga dooran lahaa waxaan dooran lahaa nin lacag leh haye ka waran maxay ahayd dabeecadihiisa iyo dhaqamadiisa iyo waxyaalahaas minad ku doorateen anigu waxaan aaminsanahay lacagtu dabeecada iyadu wanaajisaba hay ka waran bal haddii horta barnaamijka su'aashan wareegtay weydiiyo su'aalo badan baa soo baxay sababtoo ah waxaad si nin lacag leh ayaan maxay ahayd jeclaan lahaa inaan nolosha ula qaybsado ka waran haddii uu intuu lacag leeyahay dabeecadii aanu lahayn oo maxay ahayd dhaqankiisa xataa aanu wanaagsanayn bal ka waran arrintaas iyada may hiboy adiga codka kor inooga yar qaday aduu raalli may hiboy wallaahi anu waxaan aaminsanahay ama aan de dooq wajiib moogtahay ama dooqaygu yahay inaan maxaan ku raadayaan nin lacag leh anu mutala waxaan aaminsanahay inuu ninku lacag haduu leeyahay uu iska dabeecad fiican yahay in kasta abuuray leeyahay kala duwan yihiin inuu lacagtu maxaan ku raadayay anu qofku de matalan oo kale dabeecad oo kale waxa lagu fahmaa qofku matalan markaad su'aalo isku badisaan dabeecadiisu ay xumaato ayaad fahmaysaa moogtahay kin hadaaba aydan waxba isku goymanba marka dabeecadii halka way iska wanaagsanaan doonaan aaminsanahay aad bad mahadsan tahay Nimco ayaan ku soo laabtay Nimcoy Khadra waxay tiri anu waxaan lacagta ku jeclaan lahaa adigana waxaad tiri lacag bayaanu lahaan noloshaada inuu kafeyn karo macnaha waxay noqonaysaa inuu maxay ahayd ninku noqdo nin qof dadaal badan kugu haminaya meel kasta mar kasta inuu maxay ahayd adiga ku raali geliyo rabo jacayl waxa soo noqonaya dhankii dooqaaga adiga aad jeclaan lahayd ee isleedahay ninkaas saas guurso waa sidee kulleeto haddaan lahay dhalinyar qof kasta oo dumara laabta waxa u suran maxay ahayd sawir u khaasa adiga sawir ku khaasa ku suran aniga sidoo kale sawir khaasaba ay suran oo aan rabay ninka saas dooqa saw eeg nolosha la qaybso ayaan isleeyahay adiga bal ka waran maxay ahayd sawirka laabta ku suran horta waa mid qofka marka hore horta qofku waa inaad ku jecel yahay waa ta koowaad baa taasa dooqiisa horta ninku qurux horta qof laguma doorto walibana siiba ragga dumar way dhici kartaa in qurux lagu doorto laakiinse ninku nin xataa maxay ahayd qurux saasa yaanu lahayn laakiinse ninku quruxdiisu waa maxay ahayd inuu qofka noloshaada kafeyn karo teeda kale yacni sidee u jeedaa dooqaaga macni isteelkiisa miyaa mise waxyaabihiisa kale qaabka labiskiisa midabkiisa maxay ahayd waa xagga riwaayada dhaqdhaqaaqiisa balka waran
labiskiisa horta waxaan jecelahay anuu ragga dookhayga welibana ninku inuu xidho garamaanta siiba garamaanta gamcagaabka anu gamcadheere ahaan sidoo kale shaararka gamcagaabka marmar iska xidho gamcadheeraha surwaaladay noqotay jiimiska iyo surwaaladan kale softiga caadiga dharkeena caadiga oo iska xidho maxay kale aad u mahadsantahay bal ka war hadduna gacmagaabkaasi kusoo baxayn baninkaaga aad jeceshay inuu xidho mayde kala soo kala baxaa waan ogahay qofka already waan garanayaa maaha wuxuu kusoo baxaya wixii kale marka horan eegaya horta wuxuu kusoo baxayo kadibna waxaan koranaya waxaa xidhay iskadaa kuwan kale maxay noocaasi kuma soo baxa sidii markaad la sheekaysanayso oo kale ma jeclaan lahayd dharka inaad ka bedesho qaabka ka bedesho oo tidhaahdid saas u labiso waxaas xidho sidaas saxa waa runta imika intaan la sheekaysanay aanba xidhiirkuna dhex maro intaanan isguursaba ayaan dee kolley dookhiisii ogaaday soo maha qofka waad iskaran waxaa laga yaaba inaad dabeecadiisa xaataa fahanto markaasaad usii sheegaysaad ka odhanaysaa waxyaabaha noocaasa xidho kuwaasaad ku qurux badan tahay adiga u sheegay isagu waxaa laga yaaba inaanu isgaranaynin laakiin adu aad maxay aad garato aad baad mahadsan tahay nimcaan kusoo noqon doona waxaan siinay khadra bal adigana ka waran ninka maxay hayday nin sidee ah yani qaabkiisa sidee u yahay ayaad maxaad jeclaan lahayd inaad maxay hayday nolol qaybsatid wallaahi wey qaab ahaan marka aad tidhaahdo anu waxaan jeclaan lahaa qaab ahaan maxaan ku idhahdayey nin aan dheerayn ragga dhexdhexaadka iskaa haddii xagga dhara ka noqoto maxaan ku idhahday haddii labiskiisa ama staylkiisa noqotona waliba anigu aad horta waxaan jeclahay labiska khamiiska iyo macabista markasta inuu khamiis xirnaado da markaas waa shaq baan odhan karaa soo maaha sila fiican imika batana waxaaba jira in lagu xaragoodo khamiiskii berigii hore dad gaarahoo dadkanad sheegtay ee xidhan jiray balse imika waaba lagu xaragoodaa anigana wallaahi hubigay sidee loo kala garan karaa maxay haday hadduu aan maxay haday qofkii aan sheekhayn soo xidho iyo kii sheekh hadduu soo xidho maxaa lagu kala garanaya dee hiwi kolley calaamaday leeyihiinoo qofkii dee sheekhaana calaamadun baa lagu garanaya qof kalena dee waxaa la iska garanaya inuu qof iskaga soo labistay yahay iyo inuu qof sheekhood cimrigiisa xidhan ba inuu yahay la garanaya midabka oo kale bal iiga waran midab sideeya ayaa kuu soo waran midabka kalarkiisa madow timaha adag ku darsoo qaboba xidha waa xataa waa asal aad u maadsantahay dumarku waxay dhahdaan anigu nin tima adag ma doono sababtoo ah ciyaalka maxay iga timaadkaanay markaas waxaan jeclahay nin timo jilicsan oo timo hablahoo kale iyo timo ay jilicsan aad baad maadsantahay haddaba sidee ayaad jeclaan lahayd inaad u raali gelisid wallaahi hiwoy horta intay aan awoodayda aba waxaan jeclaa inaan si uu ninkaygu ku farxo raaligeli marka ka hadlayno adiga maxay hayday ha u fikirin dhanka sarati xagas laakiin maxay hayday nolosha kale iska maxay hayday caadiga hada generalka ahayd waa runtaa horta way badan tahay raaligelintu iyo taa iyada ka fikira weyne laakiin kuwa inta kale mar walba wallaahi waxaan jeclaa inaan u farxo isna way faraxsanaado matala mar guriga shaqada kale kasoo laabto sidaas baan jeclaa hadda gurigii baan joognaa waagiiba inoo bariyey khadri gurigaaga baad joogtaa ninkaagiiba hadda kula jooga waqti xaadirkaas ninkaagiiba kula jooga wuu kaasii baxayaa maxay maruu kaasii baxayo tallaabadii horreysaan qaadnay weeye weji noociyaba tusi lahayd horta markaad saa usoo toostaanba intaydaan bixinba dee weji farxad leh oo mabsuuda ayaan tusi lahaa maxaad uga dhigi lahayd qoraac runtii soomaalida waxay cunto dee isagu markaa hubi ahaan wuxuu jecel yahay waan uga dhigi lahaa ma si weydiin lahayd mise maxay ahayd waxaas buu ninkaagu jecel yahay baad odhan lahayd oo waad siin lahayd may marka kale madartay marmara iska kaftamay jirto mogtahay mararkaas baan doonin inaan si yaro dee guud ahaan intaan u yaro weydiiyo matale lakuma odhan karo waxaas caynkaasa baan kuu sameynaya maanta inaan kaga farxiyaan rabaa mogtahay kabacdina marka hore aan si yaro weydiin lahaa kabacdina saas baan ugu sameyn lahaa hore markaad sheekeysanaysaan baad sii weydiin lahayd marka sheekeysana calishaan wuxuu jecel yahay oo kale waxyaabaha weydiin lahaa markaasaas baan dee wuxuu jeclaa markaa kulmihii loobayay baan u karin lahaa u sameyn lahaa shaqada kale uu kasoo laabtayo waxaa jira markay raggu shaqada ka yimaadaan way daalan yihiin buuqiya qaxarka ma rabaan maxay umana dulqaataan markaas haddii maxay eebaba ciyaal dansiyo ciyaal meeshaas joogaan weli maxay matalaadii ayaan ku soconaa maxay sida maxay hab dhaqanka aad ula dhaqmi lahayde markuu soo laabta oo kale ka wareeda wejiga aad tusi lahayd wallaahi wey maanta dhan biisa shaqeynay horta waanu farxi lahaa xataa aniga cadhoonay ogtahay mabsuudun baan iska samaysan lahaa kawli waayo maanta dhan bii maqnaa oo aniga dartii waxaan kula usoo xoogsanaya marka caruurta oo kalena wallaahi waan ka aaminsan lahaa intaan aaminsan karo
aad baad mahadsan tahay waxay gaadhay waqtigii haddana mar labaad waxaa jira rag maxay ahayd haddana noqda casarkii oo soo laabta oo shaqadii maxay ahayd habeenkii ka yimaada amba maxay ahayd maalin oo dhan aan imano maqano habeenkii soo rawaxa habeenkii markuu imanayo waqti sidee inuu yimaado baad jeclaan lahayd saacada hiboy waxaan u jeclaan lahaa inuu yimaado sideeda bakor haddii sideeda uu shaqaynayo bas hadduu sideeda shaqaynayo dee dhib ma laha waayo shaqadii buu wadaa hadduu sideeda ka dambe u shaqaynayo inuu 10 ka imaadan jeclaan lahaa dhoola cadaynta waxaa tiri markuu shaqo tegayo waanu dhoola cadayn lahaa markuu maxay ahayd soo imaado waanu dhoola cadayn lahaa dhoola cadaynta ma waxaad iska samaysanaysaba oo la samaysan karaa mise wax loo dhasho horta marka hore baqadra may hiboy dhoola cadaynta lama samaysan karo oo wax loo dhasho marka dee qofku markuu u dhasho unbuu maxaan ku dhahay u dhoola cadayn karaa aad baad mahadsan tahay waan kusoo noqon doonaa nimco waan soo marnay lacagihii iyo kharashaadkii iyo midabadii iyo waxyaala caynkaasa inaga halka inoo marisay waxay ahayd adigoo ka bedelaya inaka labiskiisa oo kule qaabkan kuma soo baxdide qaabkaasi dharka noocaasa soo xidho oo inaga sheekadiiba inoo socotay markaad maxay ahayd waxyaala aad adigu jeclaan lahayd inaad kala sii hadashid inta maxay ahayd mustaqbalkiina ka harsan oo kale waxyaabahan kala sii hadlo waxyaala ugu muhiimsan aad jeclaan lahayd adu inaad kala sii hadashid ku farxad gelinaya markasta niyadaada ku jira marka hore waxa kamid ah marka hore maxay ahayd waxyaabaha marka hore kasii wada hadlanaa intaanan iskuulsan moogtahay marka waxyaabahan kasii wada hadlayna waxaa kamid ah inaanu maxay ahayd una ani kaligay una iga ahaaduna gabadh kale la guursanin taasoo kale kasii balan qaadi lahaa aan ku oran lahaa maxay ahayd mar haddad aan iskuulsano inaanad gabadh kale guursanaynin iga balan qaad marka taasoo kale ayaan ka balan qaadi lahaa haddii waxyaabo khaladoo kale aad igu aragto ama wax si kalaad inaad i weydiiso ood igu tiraasi waxaas waa maxay nasaa ka taalig haddii aan wax khalada waxyaabaha ku arko aan weydiin karo waxyaabahaasaan maxay ahayd aad baad mahadsan tahay marka aad leedahay maxay ahayd iiga ballan qaadinaanadii la guursanaynin haddiiba bal ka waran maxay ahayd adiga kulleeto waxbuu kuu guursaday raggana ilaahay afar buu u baneeyey waxaanan wada ogsoonahay inta badan majority ahaan waxaa dhacdaa kulleeto dee gabadhan waxa laga waayey ayuunbaa maxay ahayd loo guursadaa oo maxay ahayd imiga hoteelkan haddaan maxay ahayd imaado oo aan cunto ka dalbado cuntaasi cajabin weydo dee habeen dambe kusoo laaban maayo tusaale hotel kale baan iska tegayaayo maxay ahayd aan ka dalbanaya cuntada aan rabi kanin helayaa kaas hadduu i cajabin waayo hotel kale weeyaan ka raadsado kaas markaas i cajabiya ayaan ka cunayaa markaas raggana ilaahay afar buu i baneeyey marka haddaad kasoo bixi weydo adiga shuruudihii lagaga baahnaa amba maxay ahayd mas-uuliyaddii lagu guurso runtii aan ahayn wax halkan lagu soo koobi karo bal ka waran arrintaas iyada dhow ma ka xanaaq lahayd damay waxaan u leeyahayba hayla guursanin ayaa aynan mas-uuliyadaha ka soo baxo waanaan maxay ahaydee waan boqolkiiba boqol waxaan hubaa haddii maxay isagu aanu de waxyaabo kale aanu iska raadsanin inuu maxay ahaydee anigu aan kafeyn karo noloshiisa iyo wax dhan walba de dhinac kastaba inaan kafeyn karo anigu marka sheekada oo kale iminka markaad la sheekaysatid gabdho kale inuu la sheekaysto ma jeclaan lahayd mise inuu keligaas kugu koobnaado maya guurkiiba baan taaganaya inuu naa kala guursana sheekadiina haba sheegiba waxaad ku ogaan kartaa marka siduu ogaan kartaa de waxaad ku ogaan kartaa kolley qofka waad wada sheekaysataa soo maaha waxaa dhici karta mararka qaar waa la kulmaa waa la isarkaa soo maaha marka waxaa dhici karta inay adigoo aan la joogtidba inay qofkii kale dawla sheekadin soo baxo jeeda kale wax horta wax kastoo runa ma qarsoomi karaan maray haatiba kolley waad ogaanaysaa inuu maxay ahayd adiga qof kale ula sheekaysto aan adiga ahaynin marka xaqiiqada markasta dhan kastaba ahaatee marley waad ogaanaysaa xaqiiqada marka maxay ahayd intaan aanu sheekaday inaanu gabadh kale la sheekaysan waxaa ku xigta inaanu gabadh kale aanu guursanin aad baad mahadsantahay nimcoy waxaa jira maxay ahayd qaab ragga lagu soo jiidan karo marka lala sheekaysanayo si aanu gabadh kale kaagala sheekaysan qaabkaas oo kale fikir intee leeg baad ka aaminsantahay adugu qaabka waan taageersanahay anuu horta because of qofkii aad wada sheekeysanayseen haddaad waxyaabo maxay ahayd giftiga oo kale sidoo kale maxay ahayd waxyaabo maxay ahayd imikoo kale aad meelaha hadii aduu casuumadaad oo kale waxyaabahaasoo kale hadduu samayso waxaan hubaa inuu qofkan jacaylku kuu qabo oo in ka badan kugu sii maxay ahayd uu kuu sii qabayo aanu xaataa gabadho kale inuu la sheekaysto ama uu gabadh kale eegana ayna maxay ahayd uu iska nacayaba dee uu adiga keligaa kugu koobnaanayo dhanka xiriirka marka maxay ahayd dhalinyartu markaan sheekaysano waan sheekaysanaa waan isku baxnaa waan isku tagnaa ballanta oo kale ma jeclaan lahayd in maxay ahayd ballanta lagu soo dedejiyo mise in maxay ahayd ballanta aan lagu soo dedejinin
anu waxaan taageersanay horta inay dadka labada qof in badan kala raagaan oo ana maxaydayna ballantii on mar kasta la is arkin waayo dee haddii mar kasta la is arko qofkii la kala xiisa dhacaya marka qofkiina waxa xiisa badan uma haynaysid laakiinse haddii qofka imiga oo aad kala raagtaan oo kale maxayda xiisa badan baad isku haynaysaan maalinta waxaa laga yaabaa markaad is aragtaan inaad in badan aad wada sheekaysataan dee noloshiina ku saabsan waxyaaba badan aad ka wada sheekaysataan laakiinse haddii aad imiga habeen kasta is aragtaan amba maalin kasta is aragtaan wax dhici karta in horumarba nolosha ka gaadhida xataa qofka uu kaa xiisa dhacaw is odhanaya maxay heedeen waa maxay dee sidan oo waxaa laga yaabaa inuu dee iskala kaa maxay heeday waayo waa dhalinyar ma ogtahay wuxuu doono inuu iskala kaa maxay heeday xaraawaso iskala kaa qosqoslo dan hadhowna laga yaabaa inuu qof kale dee iska raacaba laakiinse inaad waxaa fiican aad qiimo isku yeesho oo maxay heeday inaad mar kasta arkin dee qofkii mar kasta inaad is arkin qiimaynta isku yeelaysid ma mar kasta oo qofka arkin ay ku xidhnaanaysaa mise waxay ku xidhnaanaysaa waxyaabo kale siyaabo kale oo adiga qiimaha iskugu yeelaysid ninka agtiisa markay noqoto maymay waxay noqon kartaa horta dhinac kasta in badan bay noqon kartaa laakiinse anu maxay heeday waxaan odhan karaa haddii inkasta hadduu aragiinu bato ood mar kasta is aragtaan qiimahaagibaa hoosu dhacaya ninkuna xataa wax xiiso badan inuu ku hayo kuma haynayo laakiinse haddii aad maxay heeday aad is arki weydaan dee maxay heeday in badan waxaa dhici karta inuu maxay heeday si kusii faraxsanaado maalintaas arkaysaan uu maxay heeday israado qofkaasi waa qof qiimele ilaali waxyaabahaas is odhanaya waxaan nimiga sheekadii baan kasoo gudubnay oo maxay heeday waxaan soconaa dhanka mustaqbalka ayaa nimiga u soconaa maxaad ku garan kartaa ninka kula sheekaysanaya inuu mustaqbal kaa doonaayo iyo inuuna kaa doonaynin maxaad ku garan kartaa horta imiga dhalinyartu waa dhalinyar baa laiska yahay waa las wada garanaysa maaha marka kolley waxaad ku garan kartaa qofka mustaqbalka kaa doonay kaan kaa doonin waad kala garan kartaa waayo kan aan mustaqbalka kaa doonin wuxuu doonaya in iskala baashaasho aad maxay ahayd meelaha iskala soo marmarto dee wuxuu doonaya aad u samayso laakiinse kan kale maaragtay qofka mustaqbalka kaa doonaya oo qofku ilaalinaya xataa inaad is aragtaan ama kulan aad yeelataan ayuu maxay ahayd ayuuna ogolaanaynin qofkan qiimaha qofka mustaqbalka kaa doonaya aad baad mahadsan tahay waxaa jira maxay heeday ninka maxay heeday jacaylkiisa kullitu maxay heeday xag ragga ku dheeraan mayno oo maxay heeday iyagu way naga maqan yihiin dhankii dumarka maadaama uu yahay barnaamijka arrimaha haweenka dhankii dumarka baynu lixaad ka saari doonaa oo maxay heeday ka warrami doonaa waxay dhahdaan inta badan waxaa dhacdaa in maxay heeday gabadho ay dhowr nin la sheekaysato dhowrkaa nin haddana waxaa dhacda inuu mid u soo baxo midkaasina oo maxay heeday mustaqbalkeeda noqo oo guursato imika nimco ahaan adiga maxay heeday hal wiil ma ku kooban tahay mise wiilal kale ayaad la sheekaysataa horta dhalinyarta marka lasii yaryahay way dhici kartaa inaad dhowr qof ama dhowr nin aad la sheekaysto laakiinse imigoo kale dade anuu naag weyn baan ahay maogtahay imigoo kale anuu maxay qof keliyaata ayaan la sheekaystaa oonan ku koobanahay qofka keliyaan jeclahay inaan mustaqbalka wada wadaagno ama nolosha waayo haddii aad niman badan la sheekaysato waxaa dhici karta noloshaada inay qiimo dhacdaba oonad qiimo badan aanaad yeelanin nimanka badana horta ma fiicnaba ani malaha aad baad mahadsan tahay khadraba maxay hayda iyadana sidoo kale aan ku laaban doonaa isagoo barnaamijkeenina daawadayaal maraya gebagabadii waxaa jirta markaasi nimcooy sidaa maxay ahayd aan sheegnay iminka waa kaas maxay ahayd hablaha adiga waxaa tidhi maxay ahayd ma jecla inay rag badan lala sheekaysto oo mid keliyaata ayaaba maxay ahayd ka habboon inta rag badan lala sheekaysanayo haddaba maxay ahayd waad guursatay ninkaaga qaab nuuciyay baad ula dhaqmi lahayd markaad guriga iskugu tagtaan waxaan ula dhaqmi lahaa horta nololta ugu wanaagsan oo kale ayaan kula dhaqmi lahaa markasta waan soo dhaweyn lahaa waan faraxsanaan lahaa kolley dee labada qof markay guriga ay wada tagaan isguursadaan waxa qurux badan inay nolol qurux badan ku wada noolaanta sida dadka qaar oo kale markasta ninkaaga aad ku qaylido ama waxyaabaha xataa adad wax uga baahantao kale amba khalad uu kugu sameeyo kale waad soo dhaweynaysaa aad iyo aad bay nimca u mahadsantahay khadra iminkana daawadayaal khadra ayaan maxay ahayd way middo guntiga gabagabadii barnaamijkeeni su-aali ugu dambeeyey ayaan soo gaarnay khadray sidaad arkaysay adiga waa kaasoo markii maxay horta adu gebigaaguba farxad iyo dhoolla cadaynayo waxbaabad maxay ka bixi laadahayba aad baad mahadsan tahay markaas bal waxaad iiga warantaa ninkii waa kaasoo adigu waad farxad gelisay laakiinse waxaan kuu sheegaa mar kasta dadku ma faraxsanaada farihanaasina ma sinna waxaa jira qoys 2 bil oo keliya isqaba oo haddana kala yaaca markoodii horena farxad iyo reereyn badan runtii soo qaatay adiga markaas ma waxaas odhan kartaa ma gabadha ma maxay hayday ma isaga maxay hayday colaada amba dhibaatada keenaya kulley jacayl ka hadlay mayno jacayl wuxuu yahay wada naqaanaa dad badanna jacaylka maxay hayday way in badanna waa laga hadlay oo mawduuca jacaylka maxay ku fogaan mayno hiboy waxaad sheegtay inay waxaan ku idhahdayay dad ay dadku 2 bilood intooda joogaan isfuraan
anu horta taa waxaan aaminsanay wallahi inay qadarka ilaahay tahay maxaan ku idhahdayey in yaroo waxaan ku khilaaf yaroo keliyaata oo waxaan ku idhahdayey idinsoo kala dhex geliba dee ilaahay qadarkiisa inuu socda ayaa weynaanayo maxaan ku dee ilaa heer funiin gaadhaya laakiin farxad bay ahaa ku wada noolaayeen ilaahay qadarkiisana uu kala kaxeeyey ta kale waxaanan ogahay inaanay labadaa qof ee dee isfuray matalan labada bilood kale isqabay isma nici karaan waqti isnacaan way gaadhay ay maxaan ku idhahdayey aanay marka hore isku dulqaadanayn banano aaminsanahay oo matalan kale hadda imika ninkoo kale uu dee yaro qaloocan yahay waayo dee bilaadan baynu nahay aanay gabadha u samreynin oo inta yara qalad ay ku aragto kun cisho ay kusoo hadal qaadasay oo soo wadaga maalin kasta sidaa dumar baan waxban soo hibanaya rag baa laakiin imika inaga baradheeriyay soo saas ma iyoy raggaa baan u yara naxariisanayaa ana waxaa isleeyahay hadalkiibay kusoo celcelinaysa ama isagaa xumaan yaroo keliyaat wuu ku arkay wuu kusoo celcelinaya kusoo celcelin odhanaya maalin walba odayga waxa cishaday wax saasa sameeyey qofkiina imika matalan adiga wax sameeyo wixii uu lagugu soo hadal qaaday 9-kaba sidii meelad xanaaqayd markaa arrinkiiba hawada soo maray dee markii qadarkii lahayna uu ku dhex jiray baan leeyahay su-aal baan ku weydiinayaa markaad adiga sidaas u eegtid kulli maxay ahayd dhalinyar baan nahay oo dhalinyar marka la yahay maxay ahayd calafraadis la yahayna waxaad eegaysaa maxay ahayd qoysaska ka horeeyay kuwa imiga la sameeynayo qaabka la isku shukaansado adigu maxay ahayd saas baad u eegaysaa marka adiga khadray markaad saa u eegtay inta badan maxaa furniinka iyo buuqa iyo maxay ahayd qaylada imiga waxaad arkaysaa guri dhowr iyo 10 sano guri dad dhowr iyo 10 sano guri lahaa oo isqaba oo maxay ahayd hooyooyin dumar de ayay noqday baba jiraba iyo maxay ahayd ninkiina aabba uu noqday awooba intuu aabba dhaafay markaas haddana sidii un bay buuqiga qaxarkii gurigooda ku bilaabmay sidii un bay dhowr iyo 20 sano ay ku jiraan adiga maxaa u soo wada odhan kartaa arrintaas wallaahi way waxaan odhan karaa arrinka isaga waxa uu sababa inaanay labadan qof hortay sidoo wadooda isma fahmaynba matalan dadka sidaa ugu badan waa dadka aan hore si badan usoo wada sheekaysan mana nagu aaminsanahay matalan oo kale ama la isku dhisay oo kale ama maxaan ku idhahdaa si kadiisa isku guursaday aad baad mahadsantahay nimcoy waxaa jira qoys muddo dheer dhowr iyo 20 sano sidaa maxay ahayd aan khadarba soo sheegay isqaba farxad iyo reereynna maxay ahayd ku wada dhisan laguna dayasho mudan karo iyaga kuwaasi farxad iyo reereynta ku dhisan maxaa u soo wada odhan kartaa waxaa u sababa haddii aan isku dayo waxaa la odhan karaa horta labada qof waa midda koowaad inay isjecel yihiin waa talabaadee midba midka kale inuu tixgelinayo qofka ninkuna uu gabadha tixgelinayo gabadhuna ay tixgeliso isna xaq dhowrayaan taasaa reer lagu dhaqan karaa laakiinse haddii ay kala dambeyn waayaan amba isxaq dhowri waayaan waxaa dhici karta inuu sii dheeraanba noloshooda xataa ciyaalkooga ayaa maxay heeday nolosha kaga dayanay moogtahay oo hadhow toolana sidan ay hooyadooda iyo aabaheedu dhaqmayeen iyaguna hadhow toola u dhaqmay xataa dadkan maxay intayna iyagu reera gaadhinba dadka kale dadka waaweyn oo kale asxaabta waxa way tixgelinayaan xataa way ka dhaqan duwanaanayaan ciyaalka yar maxay ciyaalka amba asxaabtooda yar kale aad baad mahadsan tahay gabagabadii ayaan maraynaa baaqa adiraysa khadra ayaad u dirayso dadkaas aan soo sheegnay dhowr iyo 10 sano isqabay haddana maxay ahayd colaadu ka dhex taagan tahay maxay say colaadaasi uga duwanaan lahaayeen oo maxay ahayd qoysaska lagu farxo runtii ay u noqon lahaayeen sidoo kale dhalinyarada maxay ahayd hadda maxay ahayd mustaqbalka samaysanaysa haweenka ah si ragga u raali gelinto koleeto waxay rag waa libaaxa dad maxay ahayd rabaysan oo ku rabaysma haddii aad maxay ahayd la dagaalantan afka ayuu ku kashtaabay maxay ahayd maamaha Soomaaliyeed ahayd sidii maxay ahayd ay gabdhuhu raali ragooda ay ugu noqon lahaayeen rag ay yiraahdaan raaliyana ka helaa ragnimo ku faana ay u noqon lahaayeen maxaad kula talinaysaa hablaha Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan baaqad u diraysaa khadray waa maxay adigoo inoo soo koobaya wallaahi way waxaan u dirayaa lamaanaha isqaba inay maxaan ku dhahay kala dambeeyaan siiba gabadhu inay ninkeeda ka dambayso way taasay sharaf ku leedahay haday maxaan ku leeyahay is egtaagtay tiraado wax saas aniga waxba hay sheegin ama waan garanayaa waxba ibi kala socon maayaan waayo de waxa ku leeyahay ilaahay bayna muusimin 150 ayuu naga dhigay markaana waxa leeyahay dumar urigiina halaga dambeeyo maxaan ku yiraahdaa ayay hadal haduu ku yiraahdo hadalkiisii maanta oo dhan wadwad maxaan ku dhahay inta fiican ka qaado iskaga taginta kale aad baad mahadsan tahay nimca ayaanu imiday nimcooy baaqa adiraysaa waa maxay adiga si ay qoysaska Soomaalidu dhammaan ay u noqdaan qoysas lagu dayan karo oo runtii farxad ku dhisan waxaan odhan lahaa maxay ahayd markasta inay kala dambeyn yeeshaan ay isxaq dhowraan ay is ilaaliyaan midba midka kale ilaaliyo ayaan odhan lahaa anigu
daawadayaal gabi ahaan inta waxaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenii arrimaha haweenka oo ay toddobaadkan marti igu ahaayeen khadre xuseen qaloon iyo nimco cabdi cismaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin barnaamijka waxaad ila socodsiinaysa oo soo saartay anigoo hiba cumar badaa dhanka farsamada iyo kamaradana waa maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan halkaad kala socoteena waa harwanaagna stuudiyo aan ku leenahay magaalada hargeysa intaan mar kale hawada isku iman doono waxaan kaga teginaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu